gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Cumar Maxamed Cumar Finish oo ay wehelinayeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka qaar ka tirsan mas'uuliyiinta degmooyinka gobolka Banaadir qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay xafladan xariga looga jariyay dhismaha iyo dayactirka mid ka mid ah wadooyinka laamiga ee ku yaala Magalada Moqdisho. gudoomiyaha gobolka oo si rasmi ah xariga ugu jaray wadadan waxay si toos ah u xiriirisay isgoyska Barayaan ilaa iyo Siinay waxayna muhiim u tahay isku socodka gaadiidka iyo dadkaba ee gudaha magaalada Moqdisho. Seenab Maxamuud Xabsi gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir oo ka mid ahayd mas'uuliyiintii dhaawac uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay xarunta gobolka ayaa ugu horeyn madasha ka hadashay waxayna faahfaahin ka bixisay ahmiyadda ay leedahay in dayactir iyo dhismo lagu sameeyo mid ka mid ah wadooyinka halbowlayaasha ee ku yaala gudaha magaalada Moqdisho. 3 Juulaay meeshan waxay ahayd meel si kale u taalo waxa la dhagax dhigay 3 Juulaay Allah u raxmado gudoomiyihii hore gobolka Banaadir halkaan uu dhagax dhigay maantana waxay noqotay xarig jarkeedii muddo kadib shacabka reer Warta Nabadda iyo Yaaqshiid oo isku duuban dhamaantood aad bay uga mahad celiyeen waad aragtaa businessyadii waxay sidii ay u soo kabanayaan markii la arkay laamigan oo la sameynayo amnigii qayb weyn bay ka qaadanaysaa bilicdii deegaanka qayb weyn bay ka qaadanaysaa galkiisa iyo ganacsiga dhamaan wadadan ayaana dhismaheedii iyo dayactirkeedii waxaa horay u dhagax dhigay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Allah u naxariistay injineer Cabdiraxmaan Cumar injineer Yariiso. gudoomiyaha xilligan ee gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Finish ayaana dhankiisii warbaahinta u sheegay in dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka looga baahan yahay inay nadaafadda iyo bilicda wadooyinka laamiga ee dib u dhiska lagu sameeyay ay ku dadaalaan. waxaan ka wada shaqaynaynaa dhismaha iyo dib u soo nooleynta magaaladan Moqdisho ee aan ku wada noolnahay doorka bulshadu marka wuxuu noqonayaa nadaafadda iyo bilicda waa xaqiina dib u dhiska iyo amniguna waa xaqeena halku dhageeno muxuu noqonayaa marka si fiican ma ibaqshin nadaafadda iyo bilicdu waa xaqiina iyo in la shido meesha la dhisay ee sidaan oo kale laga dhigay waa inay dhalaalaysaa waa inay dhalashaa waa in nalalkeedu ay shidan yihiin waa in nadaafadeedu ay tahay si heersara ay tahay annagu markaas waxaan ku dhiiranaynaa meel kasta in aan dhisno oo aan nadiif ka dhigno ayaan ku dhiiranaynaa haddii aan leedmo marka halku dhageenu marka muxuu yahay waa bulsho nabada iyo beled nadiif ah.